Please subscribe to our channel, Lalai Films. Good evening, class. Good evening, sir. Welcome to new culture, new class. Today we're going to learn communication skills. Who knows the meaning of the communication skills? Who can answer that question? Communication skills means communicating with people, just like using phones, letters, or other way, or other means. All right. Who else? Communication skills is there. Someone who uses written or using other communications like phones and Yeah. All right. That's good. Who else? Yes, What does that mean? I think that way if I try it, it will be the way people can interact with each other, or the way they interact like when they want to talk with each other. yaa ii sheegi kara faa'iidada ay leedahay isdhexgalka bulshada. Okay, all right. Hal xabo ka sheeg. way fiican tahay in la isdhexgalo because bulshada haddii isdhexgalin wax isbaranaayo ma soo All right. That's good. Who else? All right. macalin aniga hadda marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal leh waa maxay hadda sababta aan u baranayno waxaan oo nolosha saxda ah nolosha oo macnaha saxda ah halkee naga caawinaya Young boy, for your information, here we don't teach lessons. We lecture out. Stupid. Get out of here. This is the end of our lecture today. Otherwise, why don't you have a good day? صحيح ما نودي توضح لنا كلام بحال صحيح ولا بك أنا كون السلامة كل عهد صحيح ولا يعرف قصر على وجهي بس سكر سيدني هوا ما قال هو بأس إنه يحصل والله إله أفضل زي ما حصميك الله يعكر وليا محاضرة وفندق المستقبل معقول والله إله أفضل زي ما حالينا سين هذا كل يسوى والله سكون بيسنا مسكين تري ما هيستو سلو قصر لا يسمين ورسنا هاي لا أفضل زي ما حكى كده معي عقلك ما يما إنا ويديا جفت العبارة الهستو أنا قطرة صاحبي إلا وقت ما سويتني وويدينا محاضرة أرضينا ممكن يعملوا يدو صاحبي هاد ماشي انفصل وعي مركا لو يدني سنة صور يا صحيح كان wala BBC ma soo gashay wala waqtiga BBC da wala joogaa niyo anigana gaajana waa xiisaa saaxiib meesha gaa kusoo gaajooda wax karsanayn wax karsado
بريس يا ميلها ميالي يندم بيسي ايش سكر ابو جرت بريس كم صاحب بريس كي شرب بس بيس حتى ما طوري هذا وياه حنقر سلامك صح يا مشاري كرسل يا صاحب مشان تعمل مشاري اسك كرسنا الا بر ينس iyo wax isku shiidana meeshan ku jiro مشاري أنا دكتور مشير هاي رقم بدأ عندنا لا يمكن تبغى السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. waxaan dilka tahay ganacsi lagu qoslo xaduudinayna. Mana boy? Sokin kita apa sokin? مش هتحسنسي كانت صافي اسمتك كم حاجة ساعة مش هرد على سنة معناها waxaan cunay ma weynin laakiin waar adii inaan raadiya ka weysaday marka mushaahadaan yirista intii iska taashay inaan iska karsaday wax kale ma jirin adiga iska waran laakiin halkaada جمال magacaygu waa Anita waxaan ahay gabar fasalka kula dhigato in badan adigu mugaysan aan ku arkay suurtagal inaan ku caawiyo marka oo magacaygana waa taqaanaa baa marka horta kaalin soo fadhiiso ka soo kac dhulkana fadhiiso kaalin soo fadhiiso igtaa beenta maxaa la adigoo noloshaan ku jiro inaa dhaadid maaha nolol fiicanaa ku jira maxaa waaye saani xaaladana ku jirtay baa noloshaan ilaahay ii soo qadaray noloshaan macnaha inaan lacag la'aan waa bartay ilaa yaraanteydii aan sidaa kusoo noolaay marka aniga wax dhiba uma arko wallaahi aan horta ma awoodin noloshaan ay ku jirtay ma garatay waxaan jeclahay bishii inaan helo 3, 4 ilaa 500 dollar aan jeclahay bishii inay waalidkayga ii soo diraan suurtagal ma tahay inaan ku caawin karo walaalay marka taas hadda waxaa cad adiga inaa waalid oo leedahay macnaha oo jaga haysto dad oo lacag leh macnaha bulshadana ku leh macna weyn oo lacag haystaan aniga marka yaraanteeda tan sida u soo noolay waxa waa inaan iska aqbalo waa ilaahay qadarkiisa oo aan iska qaataa alla bogsas maxaa u dhahaysaane jaceylka waalidka markii laga reebo waxaa jirto jaceyl nafteeda ka maqan oo jaceyl naftaada ka maqan miyaa jiro adiga haddaa jaceyl waalid haysatid waa maha jaceylka kale waad u baahan tahay nafteeda jaceyl ay u baahan tahay jirto jaceylka waalidka markii laga soo tago jaceylkaas maxuu faa'iido u leeyahay marka hay dhihin ma garanayo jaceylka faa'iido uu leeyahay aba yaraatay aniga wax aan ka garanay malaha jaceylkaas aad adiga macnaha sheegaysa hadda waxaa u mid inaan kuu sheego wadnahayga dhinacaada u garaacmaayo